السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada casharkeeni toddobaatanaad ee Microsoft SQL Server 2019 kaasoo aan kusoo qaadan doono Introduction to Store Procedure hordhaca Store Procedure-ka haddii wax go'day isweydiinna waxa weeye waa maxay Store Procedure Store Procedure-ka waxaan leenahay waa code SQL ah oo diyaarsan isla markaana RDBMS-ka lagu save gareeyay si group ahaan isla markaana la save gareyn karo dibna loo isticmaali karo oo laguna share gareyn karo programmo fara badan hadda maadaama aynu waxaa lagu share gareyn karaa programmo badan saddex qodob ayaa saldhig u ah in Store Procedure lagu share gareeyo programmo fara badan qodobka koowaad waxa uu leeyahay Store Procedure-ku waxa uu aqbalaa input parameters-ka sidoo kale waxa uu aqbalaa in uu soo celiyo values fara badan si output parameter ahaan kaasoo dhacaya marka la execute garayo Store Procedure-ka magaciisa qodobka labaad waxa uu leeyahay Store Procedure-ku waxa uu ka kooban yahay weero programming ah kuwaasoo perform garanaya ama se qaabeynaya databases-ka operations-kooda qodobka saddexaadna waxa uu leeyahay Store Procedure-ku waxa uu soo celiyaa isla markaana uu leeyahay return status kaas oo ina tusaya in uu yahay success oo la helay wixii la codsaday ama se failure wixii laga waayay wixii la codsaday muhiimadda guud ee loo sameeyay return status waxa weeyaan in lagu ogaado failure-ka waxa kale oo isweydiinaa waa maxay faa'iidooyinka uu leeyahay isticmaalka Store Procedure-ku shantan qodob ayaana saldhig u ah ayaynu leenahay qodobka koowaad waxa uu leeyahay waxa uu yareynayaa isu socodkii network-ga dhexdiisa sababtuna waxa weeye commands-kii faraha badnaa ee ku koobnaa Store Procedure-ku ayaa waxaa loo rangareeyaa as a single code taasina waxay saamaxaysaa inuu yaraado traafigii ee ka dhexeeyay serverska iyo clients-ka sababtoo ah Store Procedure-ka laga soo garay oo kaliya taa ayaa ka dhex gudbaya network-ka qodobka labaadna waxa uu leeyahay stronger security kaasoo ah users iyo clients-ku programmo fara badan oo ay isticmaalayaan ayaa waxa ay qaabeynayaan isla markaana habeynayaan database-ka uu ku apply garaysan yahay Store Procedure kuwaas oo uu si dhex maraya maxay toolay Store Procedure-ka ku apply garaysan database-ka qodobka saddexaadna waxa uu leeyahay reuse of code-kii Store Procedure-ka ahaa in marar badan la isticmaali karo kaasoo meesha ka saaraya in marar badan la soo celceliyo SQL statements fara badan isla markaana isla code ayuu meesha ka saaraya oo hal mar ayaa la sameynaya code-kii Store Procedure-ka isla markaana la save garaysanaya marar badan dib ayaa loo isticmaalaya qodobka afraadna waxa weeyaan easier maintenance haddaba marka clients-ku applications-ka isticmaalayaan ay rangareeyaan Store Procedure isla markaana ay sideeda ku leeyihiin database operations-kii haddaba haddii uu ku yimaado database-ka change ama wax laga bedelo database-kii wax kale oo la garanaya maxay toolay Store Procedure-kii sayna shaqadiisa ku sii soconaysa qodobka shanaadna waxa uu leeyahay improved performance haddaba default ahaan Store Procedure-ka marka koowaad la execute garayo waxaa loo sameeyaa execution plan oo waxaa loo diyaariyaa si maxay toolay isku xigta execution-kooda taasna macnaheedu waxa weeye in aanu processor-ku mar walba u baahnayn inuu u sameeyo execution plan isla markaana saa ku save garaya waqtiga halkaas aynu joogay casharkeena gaaban ee ku saabsan introduction to Store Procedure. Assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.